asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal ku soo dhowaada warka habeenimo xogta cayaaraha qodobada ugu waaweyn ee warka aynu idinkugu soo gudbin doonaan waxaa ka mid ah Zinedine Zidane iyo madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez oo khilaaf soo kala dhaxgalay. waxaa sidoo kale warkan aynu idinkugu soo gudbin doonaa 4 ciyaaryahano oo Leo Messi diiday in uu kubad la ciyaaro. Manchester United oo heshiis hordhac la gaartay Wan-Bissaka. Cristiano Ronaldo oo u dabaaldegay guulihii ugu dambeeyay ee kooxda Bianconero iyo xulkiisa Portugiiska la gaaray sanadkan. goolahayaha kooxda Chelsea oo fariin jees u diray David De Gea oo ah goolahayaha isku wadankiin ee dalka Spain ka soo wada jeedaan oo kooxda Manchester u qabta goosha. qodobadaas ayaa warkan aynu idinkugu soo gudbin doonaa intaynu ku guda jirno warka iyo wixii kale oo nagu soo kordha. balse haddaad ku cusub tahay daawade subscribe inoo saar channelkeena. waxaan ku hormaraynaa Zinedine Zidane macalinka kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo waliba madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa lagu soo waramayaa in khilaaf xoogani uu soo kala dhaxgalay. Real Madrid tababaraheeda Zinedine Zidane ayaa waxa uu waqtiyadii ugu dambeeyay dadaal xoogan ugu jiray sidii kooxda Real ugu dhigi lahaa koox awood leh oo markaa uu ku soo biirinayay ciyaartooy waaweyn. todobaadyadii la soo dhaafay ayaa Real waxa ay qaadatay 2 ciyaaryahan oo markaasi lagu dhawaaqay oo ay kala yihiin Eden Hazard iyo waliba ciyaaryahanka Frankfurt markaasi dhinaca weerarka ugu ciyaarayay ee lagu magacaabo Luka Jovic. iyadoo markaa Zidane uu inta badan diiradda saarayo ciyaartooy magac leh. waxaa ka mid ah ciyaartooyda sidoo kale Zidane uu aad u raadinayo Paul Pogba iyo sidoo kale Christian Eriksen oo markaa kooxda Tottenham u ciyaara. laakiin madaxweynaha kooxda Real Madrid ninka lagu magacaabo Florentino Perez ayaa waxa uu isaguna doonayaa ciyaartooy isagu u gaar ah oo markaa isagu la rabo. waxaa sidoo kale ka mid ah ciyaaryahanka da'da yar ee kooxda kubadda cagta Real Madrid oo ciyaaraha xulka qaranka Brazil ayaa ka mid ah waxyaabaha khilaafka dhaliyay oo markaa Florentino Perez uu aad u jecel yahay ciyaaryahankaas oo kale inuu boos joogto heli karo aan loo baahnayn ciyaartooy tiro badan. sidoo kale Florentino Perez ayaa waxa uu diidan yahay in ciyaartooy lacag qaali ah lagu soo iibiyo maadaama mar haddii Hazard la soo iibiyay oo lacag aad u fara badan lagu soo iibiyay aan loo baahnayn ciyaartooy kale. laakiin Zidane ayaa waxa uu diiradda saaraya Pogba iyo Eriksen sidii uu soo heli lahaa wax kasta oo markaa dhaqaale ah haddii ay baxayaan. laakiin ninka madaxweynaha ka ah arrintaasi aad ayuu u diidan yahay. khilaafkaas ayaa ugu weyn waxyaabaha markaasi arrinta Real aan idinkaga sheegayno. markana waxaan idin soo gudbinaynaa 4 ciyaaryahan oo Leo Messi diiday in markaa kubad la ciyaaro. waxaa ugu horeeya ninka la yiraahdo Antonio Griezmann oo kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid u ciyaara. iyadoo imika la xiriirinayo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa haddana waxa uu diiday Leo in uu ku soo biiro kooxda kubadda cagta Barcelona. sababaha ugu waaweyn ee Leo Messi u diiday inuu Griezmann kubad la ciyaaro oo hal garoon ay ku wada ciyaaraan ayaa waxaa ka mid ah in Griezmann markii hore uu diiday inuu New Camp uu ku soo biiro xilli ciyaareedkii hore xilli aad ugu baahneed kooxda kubadda cagta Barcelona. ciyaaryahanka labaad ayaa waxa uu noqonayaa Mauro Icardi oo ah ciyaaryahan dhalash ahaan isku wadan yihiin oo Argentina ay ka soo wada jeedaan inkastoo Icardi uu ciyaaro kooxda kubadda cagta Inter Milan. Leo ayaa waxa uu sheegay inuu markaasi weeraryahanka Inter Milan uusan jeclayn in ay isku kubad noqdaan oo isku garoon ay ku wada ciyaaraan. waxyaabaha ugu waaweyn ee loo sababeeyay ayaa waxaa ka mid ah inuu markaa Leo diido inuu kubad la ciyaaro ninka la yiraahdo Mauro Icardi. waxaa ka mid ah in saaxiib wanaagsan oo markii hore ay wada ahaayeen 3 ciyaaryahan Messi iyo sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Mauro Icardi iyo Maxo Lopez iyagoo markaa taa ay jirto haddana ninka Icardi ah xaaska ama saaxiibta Maxo Lopez marka uu kala wareegay oo isagu uu guursaday Icardi taasina ay dhalisay in saaxiibtinimadoodu ay kala fogaato. waxa uu Messi arrinta ku tilmaamay mar haddii nin saaxiibkii sida u qiyaanay dhan kasta inuusan ku wanaagsanin taasina ay keentay inuu Leo diido inuu xulka qaranka maaliyadeeda xirto Mauro Icardi.
ciyaaryahanka saddexaad ayaa wuxuu noqonayaa Mesut Ozil oo ciyaara kooxda kubadda cagta lagu magacaabo Arsenal oo Premier League ka dhisan 2017 Barcelona ayaa waxa markaa shaqada isaga tagay oo markaa kooxda ka tagay Neymar isagoo markaa kooxda isaga tagay oo Paris Saint-Germain ku biiray taana bedelkeeda ay raadiyeen kooxda kubadda cagta Barcelona sidii Ozil ay u soo qaadan lahayd laakiin Messi waxa uu yiri Ozil ma rabno haddii qof bedelkiisa la raadinayo loo baahan yahay in la keenana macquul tahay ninka la yiraahdo Angel Di Maria oo isku wadan yihiin isagoo markaas horistaag ku sameeyay Ozil inuu kooxda Barcelona ku biiro ciyaaryahanka ugu dambeeya ayaa wuxuu noqonayaa Marco Reus oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund 2017 Barcelona ayaa waxay aad u raadinaysay xiddi qadka dhexe oo markaa Borussia u ciyaara oo lagu magacaabo Marco Reus laakiin dhinaca farsamadiisa ayuu wuxuu ku tilmaamay Messi mid aan markaas ku habboonayn kooxda kubadda cagta Barcelona dhinaca kale Manchester United ayaa waxay heshiis la gaartay ciyaaryahanka lagu magacaabo Wan-Bissaka iyadoo markaa ciyaaryahankan u ciyaaro kooxda kubadda cagta Crystal Palace ayaa dalabkii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester United u soo gudbisay ciyaaryahanka ay ku iibsanayso oo ahaa 40 milyan oo ay ka diiday oo marka ay tiri anigu arinta ma rabno laakiin Manchester United ayaa dib u soo rogaal celisay oo ciyaaryahanka lagu magacaabo Aaron Wan-Bissaka marka u soo bandhigtay lacag fara badan kooxda kubadda cagta Crystal Palace oo 50 ilaa 60 milyan ah taa oo markaa dood ka keeni karina leey sida warbaahinta qaar ay sheegayaan in ciyaaryahankan si sahlan ay ku bixiso kooxda kubadda cagta Crystal Palace waxaana leeyahay heshiis shaqsiyadeed ayuu la gaaray kooxda Manchester United Bissaka taa oo markaa bedel u noqonaya ciyaaryahankan Antonio Valencia oo kooxda macsalaameena Cristiano Ronaldo waxa uu markaa u dabaaldegay oo ku soo bandhigay dabaaldegiisa baraha bulshada gaar ahaan Twitterkiisa guulihii ugu dambeeyay ee kooxdiisa Juventus iyo xulka qaranka Portugal oo la gaaray Ronaldo ayaa waxa uu sanadkan xilli ciyaareedkan ku guuleystay ilaa 3 koob oo waaweyn Juventus ayaa waxa uu kula guuleystay koobka Serie A dalka Talyaaniga sidoo kale Super Cup-aha dalkaas Talyaaniga dhinaca kale qaranka ayaa waxa uu kula guuleystay koobka lagu magacaabo UEFA Nations League oo dalka Holland finals yimaadeen oo hal iyo eber ay ugu adkaadeen waxa uu markaasi bartiisa Twitterka oo ku soo qoray saddexley oo uu la jeedo waxa uu dabaaldegaya 3 gool oo xulka qaranka ee Switzerland aan ka dhaliyay u dhiganta ayuu leeyahay Super Cup Serie A iyo UEFA Nations League min goolkii wuxuu markaa ugu dabaaldegay hal koob marka ninka odayga waxba laga maqaba karo ugu dambeyntiina Kebe ninka la yiraahdo oo markaa goolhayaha u ah kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa fariin jees u muuqtay wuxuu u diray dhigiisa kooxda Manchester United David De Gea waxaana markaasi ku salaysnayd arintaasi fariinta ahayd maadaama habeennimadii xalay xulka qaranka Spain marka ay la ciyaarayeen xulka qaranka Sweden 3 eber ay ku adkaadeen oo ahaa goolhayaha koowaad ee xulka qaranka Spain inka la yiraahdo Kebe waxa uu sheegay in marka De Gea uu ku jeesay ninkan oo wixii hadda ka dambeeya dalka Spain aniga ayaa koowaad ka noqonaya ayuu leeyahay ninkan waxaana kamid ah isagoo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu yiri dadaal ballaaran ayaan wada bixinay aniga iyo De Gea intii tababarka marka aynu wadnay oo midba midka kale wuxuu doonayay inuu ciyaaro laakiin aniga ayaa la soo xushay ayuu yiri waxa uu tilmaamay De Gea in badan ayuu wuxuu soo ahaa goolhayaha koowaad ee xulka qaranka Spain laakiin wax badan ayaa isbedelay ayuu yiri waa ii farxad inaan ciyaaray ayuu yiri inaan markaa caawiyay xulkayga inaan ciyaarta markaa dhameystay oo aan wax bedel aan la igu sameeynin taasi ayaa wax ii tahay mid niyad ayuu leeyahay goolaha Chelsea ayaa sheegay in uu markaasi hubanti ay tahay inuu markas isagu ahaan doono goolaha koowaad ee xulka oo ku dadaali doono waxa uu yiri qofkii si fiican u ciyaaray xilli ciyaareedkan ayaa ah goolaha koowaad shaqo
fiican ayaana qabsaday waana sii qabsan doona ayuu yiri. David De Gea aad buu u murugsanaa ayuu yiri inta ciyaartu socotay. Marka taasi ayaa waxay ahayd mid uu markaa uu ku jeesjeesay golayaha kooxda Manchester De Gea